جوبيو موتهاي تمادنا نحنا أولها موتهاي hayaay waxaan filayaa asxaab badan oo barnaamijkan aad u jeclaa in maanta soo laabashadiisa ay farxad gelin doonto horta reer Faarax Axmed Madoobo barnaamijkan soo laabashadiisii waxa laga casuumay Pakistan oo markii aan safarkii Karachi isku diyaariyay Mumbai ayaa taleefanka iga soo wacday oo igu tiri car iyo wir Pakistan ku hormar oo safarka inaga soo bilow yaabkiis arkuwana are yaar maafke jiye आपको दोनों के मिलने आया हूं मेरा नाम हसन उस्मान है स्वागत है आपके इसके प्रोग्राम में idin macaayin reer Faaraxo reer badbadka he ayaa waxaan ku iri raali ahaada labadiinaba waan idin imaan doonaa magacayguna waa Xasan Cismaan ku soo dhawaada barnaamijka ar idinka moogtahay daawadow ama dhageystow in Hindiya iyo Pakistan mar ay ahaan jireen hal dal oo la isku oran jiray British India ilaa ay kala go'een sanadii 1947 kala go'aasi waxa loo yaqaanaa partition waxa sababay muran diimeed iyo mid siyaasadeed iyo rabitaanka dadka muslimiinta oo doonayeen dal gaar ah inay noqdaan Pakistan waxay noqotay dal muslima halka dalka Hindiya uu sheegtay dimuqraadiyad inuu qaatay oo dadka ku nool ay isugu jiraan dad diimo kala duwan haysta ma soo ogtahay in kala go'aasi uu sababay dhimashada kumanaan kun oo qof iyo barakacyaal kor u dhaafaya 10 milyan ma sii ogtahay daawadow inay waqtigaasi ahayd mid ay adkeyd in la xadido xuduudaha dad isku qoys ah baa labada dhinac u kala qaybsamay magaalooyin ba si qalad ah loo kala jaray oo waliba halkaasi waxa ka dhacay wax lala yaabo tan iyo markaasi Hindiya iyo Pakistan xiriirkooda wuxuu ahaa mid muran badan leh dagaalo muran xuduudeed tartan siyaasadeed iyo xifaaltan dhaqan iyo dhaqaale ma soo ogtahay daawadow in Hindiya iyo Pakistan 4 jeer ay si rasmi u dagaalameen sanadii 1947 iyo 48 dagaalkii ugu horeeyay Kashmir ay markaasi isu qabteen 1965 dagaal kale oo ku saabsan Kashmir ayaa dhaxmaray 1971 Pakistan ayaa laba u kala jabtay oo Bangladesh ayaa halkaasi ka curatay dagaalkan waxa uu ka dhashay khilaaf siyaasadeed iyo mid qowmiyadeed oo ka jiray bariga Pakistan oo maanta Bangladesh lagu magacaabo dadka bariga Pakistan deganaa waxay ka cabanayeen takoor siyaasadeed mid dhaqaale iyo cadaadis military oo kaga imaanayay dawladda Pakistan ee fadhigeedu ahaa galbeedka dalkaasi ma soo ogtahay Pakistan iyo Hindiya si toos ah inay u dagaalameen xilligaasi Hindiya waxay taageerisay dhaqdhaqaaqii madaxbanaanida bariga Pakistan ee maanta Bangladesh loo yaqaano dagaalku wuxuu socday muddo kooban laga bilaabo 3 bishii December ilaa 16 bishii December 1971 ma soo ogtahay daawadow in Hindiya iyo jabhadii madaxbanaanida bariga Pakistan ay guuleysteen Bangladesh ayaa noqotay dal madaxbanaan 16 bishii December 1971 in ka badan 90 kun oo askarta Pakistan ayaa la qabtay xilligaasi waxayna noqdeen maxaabiis dagaalkan waxaa si weyn u dhaawacay kalsoonidii awoodii Pakistan ee gobolka sidaas oo kale markii afraad ay dagaalamaan waxay ahayd 1999 dagaalkii lagu magacaabay Kargil War dagaal kooban ayaa ka dhacay buuraleyda Kashmir dagaalada waxay ka dhasheen run ahaantii arrimo xuduudeed mid qabiil iyo arrimo siyaasadeed oo isdiidan ma ogtahay daawadow in labada dal ay haystaan hubka wax gumaada ee lagu magacaabo nuclearka Pakistan iyo Hindiya waxay noqdeen laba dal oo kala haysta diinta muslimka iyo diinta Hinduuga kuwaas oo gacanta ku haysta hubka ugu halista badan dunida taas oo khatar weyn gelisa nabadda gobolka ma soo ogtahay daawadow ama dhageystow in Pakistan iyo Hindiya ay yihiin laba dal oo daris ah laakiin haddii aad tiraahdo waa laba dal oo daris wanaagsan ah waxaad noqonaysaa qof aanan runta aqoonin waxay la mid yihiin run ahaantii bisad iyo jiir ama dooli oo aragti uun ay ka dhaxayso
ma soo ogtahay daawadow waan hubaa inaad ogtahay in labada dal ay kala tageen ama ay kala go'een sanadii 1947 laakiin tan ugu yaabka badan ee ka qusulsiinaysa waxay tahay labadii nin ee Hindiya iyo Pakistan laba dal u kala qaybiyay ama xariiqinta u jeexay xuduudaha in lagu kala magacaabay Louis Mountbatten iyo sidaas oo kale Radcliffe midkoodna weligiis cagta ma dhigin xuduudihii iyaga ay jeexeen ama iyaga ay sameeyeen mase sii ogtahay Louis Mountbatten inuu ahaa wakiilkii boqortooyada Ingiriiska Hindiya waa ninkii fududeeyay in Hindiya iyo Pakistan ay kala noqdaan laba dal oo kala madax banaan 15 bishii Agoosto 1947 sidaas oo kale Radcliffe isagana wuxuu ahaa gudoomiyihii guddiga xadeynta xuduudaha ninkan weligiisa Hindiya horay uma uusan tagin ama cagta ma uusan saarin waxa hortiisa la soo dhigay qariirada adduunka waxa lagu yiri waxaad haysataa waqti kooban si aad labadan dal ama labadan gobol ee lagu kala magacaabay Punjab iyo Bengal laba dal aad ugu kala dhigto wuxuu shaqadiisa ku soo afjaray muddo 5 toddobaad gudahood ah taas oo horseeday muran badan kadeed barakac baahsan ilaa iyo maanta ka dhax alowsan reer badbadka tumhara qarabadka Radcliffe markii howshiisii uu dhameystay wuxuu dib ugu laabtay UK waxa uu sheegay inuusan doonayn in mar kale uu ku laabto ama uu arko xuduudda dhiigga badan ku daadanaysa ee isaga uu jeexay xitaa ninkan wuxuu qirtay in xilligaasi uusan aqoon u lahayn gobolada uu kala qaybinayay iyo sida uu dadka ay u kala dagaan xitaa uusan aqoonin weligiisna uu tagin Hindiya kuwaasa kowdhaha alla ayaa idinkaga barye adduunka oo dhan sidaan ay u kala qaybinayaan haddana sidaas ay ugu maadeysanayaan bal dulmigan arag meeshii xadka ay mariyeen weligood ma tagin labada nin oo warqad kaliya ay xarxariiqeen diyaaradna ay ka raaceen kuwaasa kowdhaha idin alle hagaag asxaabay wax yar aynu ka soo nasano siyaasadda iyo murugadeeda oo reer badbadka qaraxadooda aynu soo daawano areelaaw toorahan si karle nakeena leen ka wada wax yar aynu soo qosanle ma ogtahay daawadow in labadan dal ay leeyihiin suuqyo isku eg filimaan isu dhow xitaa heeso aakhirkii keena in labadan dal ay isku qabsadaan labadan dal waxay u dhaqmaan sidii Tom and Jerry mase ogtahay haddii Hindiya filim ay samayso Pakistan ay dhaleeceynayso filimkaasi haddii Pakistan hees ay samaysana Hindiya ay aad uga caroto iyadoo markaasi ku dhaarata qaramzade tum ku jajabsadee karne sidii digaagka wallahi dhaarta ayaaba idisha bisinko war meesha waxaan isiri cal dheer ma jooga mise shaaruqan ayaa jooga kuwan iyo boota ku jajabsada kulaha ma soo ogtahay daawadow in labadan dal si qarsoodi u sheekaystaan halka caalamka oo dhan ay ugu sheekeeyaan inay cadow isku yihiin siyaasiyiintooda waa kuwa sida laba wiil oo isku fasal ah oo qol wada fadhiya Facebookana iska xanibay ama blog iska saaray laakiin Instagram storyga waa kuwa iska daawada oo hoosta iska salaama ma soo ogtahay daawadow in ciyaarta cricketka in labadan dal aad looga jecel yahay waana ciyaarta kaliya ee labadan dal markay isku soo aadaan loo arko in dagaal uu ka qarxi karo maadaama labada taageero hadallo aad u kulul ay isku diraan haddii Pakistan ay badiso Karachi waxa ka dhaca aroosyo aan la qorsheyn iyo fantasiyo lagu durayo jabkii Hindiya soo gaaray haddiise Hindiya ay badiso New Delhi waxa ka dhaca dabaaldegyo waaweyn xitaa dadka aan ciyaarta daawanin waxay si fudud ugu qeyliyaan jaadgaaye oo macnaheedu tahay waan ku guuleysteen walaalaheen waa ay guuleysteen walaalaheen xitaa ciyaarihii ayaa labadan dal waxay ugu dhigan tahay in nuclear ay isku adeegsadeen ma soo ogtahay daawadow in dhalinyarada labada dal ay jecel ay wadaagaan marka laga fogaado khilaafka siyaasadda waxaad arkaysaa wiil Pakistaani ah oo gabar Hindi jeclaanaya markaasuu gabadhii ku yiraahdaa dil diya jan bidange qalbiga ayaan ku siinaya nolosha oo dhan ayaan farta ka saaraya halkii gabadha Hindida ay ku catawdo laakiin bahle visa leeyaw taa macnaheedu tahay laakiin horta qalbigaaga inaad isiisid ha ii dambaysay fiisa ii soo hel taa macnaheedu waxay tahay in labadan dal xadkii ay labadii nin ee wajarada cadaanka ahaa ee jeexeen in dhibaato weyn u geysatay in dadkan ay ahaayeen dad qaraabo ah laakiin ay ku kala tageen dhanka caqiidada
runtii arrinkaasina waa arrin saameyn weyn ay u geysteen waddankaasi gumaystihii ingiriiska. mase og tahay daawadow wax kaa qusliya ama wax kaa yaabaya ayaad maqlaysaa in labadan dal ay isu sheegaan inay yihiin dalal dimuqraadi ah, laakiin mar kasta oo doorasho ay ka dhacayso dalalkooda internetka ayaa qarxa oo internetka ayaa la waayaa, telefoonada ayaa aamusa, warbaahinta maxalliga ah waxaa dadka lagu madadaaliyaa cimilada maanta aad ayay u kulashahay, sidaas darteed ayaa qadkii teleefonka iyo internetka loo waayay, waa la kala adeeganaya meeshan. mase og tahay daawadow in ragga labada dal ay si wada jir ay u necab yihiin in laga hadlo mushaarkooda, laakiin ay aad u xiiseynayaan inay ka doodaan yaa fiican shaaruuqan mise fawaadqan. hagaag barnaamijkeena ma og tahay safarkiisa intaas aynu ku soo gabagabayno. waa tahay waa inoo barnaamijkan mid la mid ah meen xasan cusmaan ho और मेर तुमसे विदा ले रहा हूँ। नबदे अल्लाह हाफिज। موقتها